Airport-ka magaalada Hargeysa oo ka socday dhismo ayaa maanta dib loo furay iyadoo munaasabad lagu furay airport-kaasina ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay dawladda Somaliland. Haddaba warbixin arrinkaasi ku saabsan Hargeysa waxa ka soo diray wariyayna halkaasi nooga soo warama. Gaadiidka caalamiga ah ee Cigaal International Airport ayaa ka mid ah halbowlayaasha ilaha dhaqaalaha ay ku dhisantay dawladda Somaliland. Madaarkan ayaa in muddo xidhnaa iyadoo laga waday habayn iyo casriyeyn. isla markaasina la keenay qalab aad u casri ah isagoo la jaan qaadi doona madaarada caalamiga ee adduunka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo xubno wasiiraha ayaa maanta ka soo qayb galay furitaanka xafladda ee madaarka Hargeysa. xafladdan ayaa ahayd mid aad loo soo agaasimay ugu horeyn waxaa madashaasi ka hadlay mas'uuliyiin aad u tiro badan kana tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo marti sharaf kale waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda duulistii hawada mudane Maxamuud Xaashi Cabdi isagoo ka warbixiyay hawsha dayactirka iyo hababka casriga ee lagu soo kordhiyay madaarka Hargeysa. waxa kale oo uu sheegay laga bilaabo maanta in madaarka Hargeysa furan yahay waxaana xafladda soo afmeeray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo isagoo xadhiga ka jaray madaarka waxaanu halkaasi madaxweynuhu shahaadooyin ku guddoonsiiyay mas'uuliyiin iyo xubnihii ugu firfircoonaa ee kaalinta mugale ka qaatay dib u habaynta casriga ee madaarka Hargeysa. waxaana madaxweynaha hadaladiisii ka mid ahaa innagu aad iyo aad u qiimeynayna uguna mahadnaqayna Kuwait Fund iyo dawladdiisa iyo cidda wixii ka tartoodo dhan. waxaan jecelahay inaan halkan baryo ballaaran uga soo jeediyo staafka iyo wasiirka iyo wasaaradda duulistii hawada airport-da baamusha waxaan weynaa qiimaha halka ka qabatay waxaanuna ballan qaadaynaa inaan haddii aan dawladda Soomaaliland maanta joogtaynahay inaan horumarka aan ku ekay airport-yada la xiriira wadooyinka la xiriira caafimaadka la xiriira tacliinta la xiriira wajh kastoo ay horumarka qaranka u baahan yahay taabata inaan hore ugu sii wari doono oo halkaa hore uga sii talaabsan doono. tacaala waa inoo badana inaynu qaran ahaan iyo mad ahaan meel kasoo warjeesano dadkeenu had iyo goor hore waa dalka dimuqraadiga waa dalka wax qabsanaya waa dalka doorashooyin kale waa dalka isdhaliilaya waa dalka wax isu tilmaamaya waa dalka xoolo qabsanaya inta ay jiilaysa gacanta ay jiilaysa lugta ay jiilaysa aan ogolayn hore ugu talaabsano waa inaynu meel uga soo warjeesanaa waa inaynu qaran ahaan gacanta isqabsanaa waa inaynu nabadda ilaalinaa waa inaynu horumarka ku dhaqaaqnaa waxa shacabku qabsanayo iyo waxa dadku qabsanayo iyo waxa dawladdu qabsanaysa inta marka halkan masjidka maanta ay loo tahay horumarka marka sameynay uu yahay mid fiican ku talaabsano insha Allah halkaas ay horumarka sameyn doonaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi waxaana la rajaynayaa in bilicdiisa soo jiidan doonto caalamka oo dhan. Maxamed Ismaaciil Aadan, Royal TV, Hargeysa.